halkan oo ah goobtii xalay falka dilka ah loogu geystay Allah u naxariistay laba marxuum oo halkan ciidamo ka tirsan dawladda federaalku ay ku dileen waxa ka socda dibadbax rabshado wata oo dadka deegaanka iyo ehelada marxuumintu ay sameynayaan waxa ay dalbanayaan in ay doonayaan in cadaaladda loo horkeeno askarigii ka tirsanaa ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya falkan dilka ah geystay walow saraakiisha booliiska Soomaaliya ay sheegeen in gacanta lagu hayo askarigii falka dilka ay geystay dadka dibadbaxa dhigaya oo ah dadkii dariska la ahaa marxuuminta iyo xubno kale oo kamid ah ehelkooda waxay codsanayaan in cadaaladda la horkeeno askarigii falka dilka ay geystay isla markaana dibadbax ay sii wadayaan cabashada dadkan sidoo kale waxa ay ku saleysan tahay oo ay sheegeen in ilaa hadda tan iyo markii falka u dhacay uusan u imaan wax mas'uul ah oo ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyaguna waxa ay sheegeen in dibadbax ay sii wadi doonaan tan iyo inta ay cadaalad helayaan marxuuminta la dilay oo ay sheegeen in si gardarra loo dilay sida dadka deegaanku ay sheegeen qaar kamid ah dadkan oo telefishinka dalsan halkan kula hadlay waxa ay cabirayaan dareenkooda ku aadan dibadbaxa saaka mar kale halkan ay ka dhigayaan wuxuu ku saleysan yahay inaan helno cadaalad sax inaan helno ilaa cadaalad ma hayno ilaa xaqiiqada ma hayno taliya booliska in imaanin gudoomiyaha gobolka in imaanin xalay ilaa hadda mudaharaadkan waa socdaa marka waxa loo baahan yahay qof bilaanka in garab la siiyo loo baahan yahay dawladdu waxaan u baahnaa garab ninkan xabsi laga saaro si dhiida la geeyo warqad cadeynaysa dilka ka dambeeyay ninkan in soo saaro u baahannahay anaga mudaharaadka ilaa hadda waa sii wadeynaa joojimo doon ilaa galabtii la caawa sii wadeynaa istar Umar aleedaa waxa rabaa adeerkay qalad la'aan loo dilin faantii asoo wax galabsana la dilay ninki waxa dhii lahay oo adeerkay dilay in cadaaladna laga qaado oo asna la dilo taas dalbalay dawladda ka dalbalayani wuxuu dalbanayaa in ninkaas la dilo taas waa muhiimada kale inta ma jirto in ninkaas laga aaro oo asna la dilo bis harabna anaga laana adeerkay waa la dilay maahno shil ka dhacay dil ka dhacay xalay 3 saac boondheere gaar ahaan iskuuska Jubbe al saac 20 dhiman gaar ahaan Jubbe horta awalan waxaan baaq dheer u deelinayaa dawladda federaalka Soomaaliya awalan dhibayna ayada keenin horta naguma dhicin sababtoo bandow ayay tiri hal saacna bandow ina anfici maayo teeda kale coronavirus waxa qaadi kara Allah subhanahu wa ta'ala cid kale qaadi ma karto teeda kale waxaan u sheegaa dawladda qaska iyo dhibaatada ay shacabka ku hayso ha ka daaydo inay ka daayda aad u wanaagsan cudurka Allah noo keenay cid kale nooma keenin wiilka dhintana xal anigu waxaan walaalkiis baan ahay ma fahamta haddana waxaan ugu haysataa haddana inaan la qaadin ninkii dilay aan la horgeynin cadaaladda ay ugu haysataa iminkadan ay ugu haysataa dawladda ha naga daaydo shacabka cadaadiska ay ku hayso Allah u naxariistay Madiina oo kamid ahayd marxuuminta xalay halkan lagu dilay waxa ay gadi jirtay maqaaxidan oo ku taala meel aan sidaas uga fogeyn ilinka hore ee gurigeeda falka dilka ah intuu sadicin waxaana loo xaqiijiyay in marxuumadda Allah u naxariistay ay ku sugnayd halkan oo ay ka markaas aruurinaysay alaab iyada iyo hooyadeed maqaaxidan macaamiishooda ay afar ugu sameeyeen ehelku waxa ay noo sheegeen gaar ahaan hooyada dhashay marxuumadda in falka dilka ah uu halkan ka dhacay isla markaana ay markaasi soo qaadaysay alaab maqaaxida ay ka soo bixisay wiil yar oo kamid ah ilmaheedana ay banaanka ka soo doontay sida naloo xaqiijiyay hooyada dhashay Allah u naxariistay marxuumadda waxa ay dalbatay in cadaaladda loo horkeeno qofkii ka dambeeyay falka dilka ah ee gabadheeda loo geystay sidoo kale aabaha dhalay Allah u naxariistay Madiina waxaana loo sheegay in shoog uu ka qaaday falka dilka ah isla markaana hadda xaaladiisu aysan wanaagsanayn gabadha waxa uu dir meeshan albaabkayga agtiis alaab ay aruurinaysi anigana gurigan ku jiro inuu soo xambaarsahay waxa yeerta xabadii markay yeeran maxaa dhacay inaan dhahay yeertadana markay yeerto soo baxay gabadheedo meeshan taala arkay waa olaadli waa ihad loys ma ada u hor arkay mistada la joogo marka iimaan isla markii xabada markay dhicin gabadheedo ana arkay waa gartay marka hadan la kadiba agaarkii kaleento halkaas yeelay nin kaleenta hor yeelo xasan cali waa leeyiri xasan cali xabadii ka soo baxday iyada ku dhacday leeyiri aan warb muhayno waa wareersanay moogtay saasay ku dhacday waa xaroonayna askartiya timid waxay tiri alxarada waa soo xaroon anaka wax banaanka naga jirin alaab oo wax lagu sameeyay amaha ay Italian xareynay ay xareynaysi iyadoo xareynayso bagradkii dambeys oo wado wiilka ordaya xabadu ku soo dhacday ku yimid marka sidii oo xabadii maqlay moogtay markay yeerti
banaankan u soo baxay gabadhiyo meeha ii taalo waatane waayahay waxaa ii sheegtaa gabadhaadu umul bay ahayd meeqa beriya dhalaneed ilmo qanaqeen 30 beriya dhalantay gabartay waa gartay meeqa ilmo haysataa laba cunug haystaa da'deedu meeqa jir waay 19 waa gartay wax dawlad ii yimaadi ma arkin aniga waa gartay wax xageed iga weydiinayna ma arkin ninkan waxaan ka codsanaa inaan gabadhaasayt ninka dili in la dilaan rabaa aniga oo xaqayga laga soo dhiciyo aniga nadiyaana ka rabin duugaana ka rabin ina gabadheeda ninkii dili ina la dilaan rabaa dibadbaxa saaka ee soo laba kacleeyay waxaa ka horreeyay dibadbax ee xalay xilli hore ee ka dhacay halkan oo markaasi dadka deegaanku ay dhigeen isla markaana ay ku diidanayeen falka dilka ah ee halkan ka dhacay maxamed cabdi xasan iidle raadiyaha telefishinka dalsan muqdisho